kulan wacan daawaday waxaad ku soo dhawaataa janaalkeena leewaya filmis oo aad kaga barateen inaad ka daawataan warbixinadii la xiriira aktaryaasha ugu caansan Hindiya iyo kuwooda haatan u halgamaya inay noqdaan aktara magac ku leh Bollywoodka. Hadaba haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena ama janaalkeena leewaya filmis, fadlan subscribe noo dheh, comment ka baxso, like ta saar, sidoo kalena gambalaalka furo si aad u hesho warbixinada ugu dambeeya ee halkaan aan soo dhigno. warbixinteena maanta ayaan waxaan ku eegi doonaa atirshada guulaha u saaxiibka ah Alia Bhat, kareenada cusub ee Bollywoodka, maadaama ay taageero wali ah ay u tahay kareena ka burqaan. Alia Bhat ay hadda waxa ay ka mid tahay gabdhaha ugu guulaha badan iyadoo xilli degan ay ku qaadanayso film jelista. filmadeeda ugu dambeeya sida Razi iyo Gully Boy ayaa guli laxaad ah gaareen kuna qaadatay atirshada ugu fiican ee Hindiya ee bixiso shirkadda Filmfare Awards. haddaba waxaan warbixintana ku eegi doonaa hadallada dhiirigelinta ah ee Alia Bhat ka sheegtay goobaha ay dadka isku yimaadaan. haddii aanan dhihin ma aqaan sideen ku ogaadaa, haddii aanan weydiin su'aal sideen ku helaa jawaabta. sanadkeedii 25aad Alia ayaa kala hor noqotay atirshada lagu doondoonista badan yahay Bollywoodka. kol hore ayay ismuujisay oo waxay nolosha ka damacsanad ayay ku dhaqaaqday, halka kuwa qaarna ay sanado badan aan weli isu soo shaabixin. waxay ka dhabaysay inay ka run sheegto oriyadeeda iyo inay wax waliba sida ay rabaan ay u samayso. xilli walba ay dadka weydiiyaan guulahayga oo wax fiican ayaa sameynaysa, maxaad dareentaa, taas ayaa samaysa ay tanba ahaanteeda waan sameynayo, wax fikrad ah kama haysto sida wanaagsan aan u sameynayo iyo waxa ay ugula muuqato. haddii ay yihiin wax aad igu fiican amaba igu dhaqsiyaha badan ama inaan ka gudbayo, waxaan u maleynayaa haddii aan fariisto dib uqiimeen aan ku sameeyo tilaabo walba oo aan qaadayo, waxaan hadaba qaadayaa nolosheeda si dhab ah. Alia Bhat ayaa haysata abaalmarinta atirshada ugu wanaagsan ee Hindiya ee bixiso shirkadda Filmfare Awards 3 jeer, waxayna ku qaadatay Razi, Gully Boy iyo Urta Punjab, halka abaalmarinta oo ah Best Critics atirshada labaad ee haysato 1 jeer. atirshada hadalka si wadata ayaa dhinaca kale waxay sheegtay, waxaan rabaa in lagu xasuusto fiilmada dhan aan qaybta ka ahaa, waana sababta aan nooca saameynta aan ugu yeelanayo fiilmadeeda sida caruurteeda. waraanteeda waa waxaan aad ugu nugulaa, sidoo kalena aan aad ugu baahnaa inaan caddeeyo iyo inaan sameeyo waxaan had iyo jeer ka hadlaa waxa haysan iyo waxa aan awoodo inaan si fiican u sameyn karo, balse halka aan ka cabsan lahaa inaan dadka lala meel dhigo, waxaan awoodaa inaan ka ficnaado, waxaan isku dayaa inaan ku dhaqaaqo hab nooca nolosheeda ugu fiican, ayay tiri atirshada Alia Bhat. haatan waxaa u diyaarsan oo dhowaan loo soo saari doonaa filimkeeda ee la wado ninka lagu xanto Ranbir Kapoor iyo sidoo kale tooro ugu guulaha badan Hindiya ugu nafaca weyn Amitabh Bachchan, inkastoo uu dib u dhigay cudurka coronavirus iyadoo la hubo ama la rajeynayo in 2020 ama sanada 2021 filimkaas in la daawado iyo horantaba sanadkan ugu dambeeya ee 2020. waad ku maasantahay dhegeysiga warbixinta. haddaad ka heshanay asxaabtaada la wadaag.